بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دما ولا الله يجا ميل كستا جوجتان I hope دمانتينا لدنتين عافمات قبطان ميل كستا حلي كستا يساعد كستا يدين تهين الله سبحانه وتعالى يدكو حفتيو كسو دوادة channel كيغا وانو نادية سيديتهين مع عافمات قبطان وانو يدكو سو نقضي with another video إن شاء الله بإذن الله كريم. walaalayaal videogaygii ugu dambeeyay qof ayaa wuxuu isoo qoray walaalaheena kamida commentiga cod male marka waxaan u assume gareeyay inuu ka wado cod ayay codku waa daciif insha allah bismillahi kariin marka hadda waxaan bahal aan haystay for long time laakiin meel ku jiray ayaan soo raadiyay soo helay soo fadlan insha allah bismillahi kariin haddii codkaygu weli daciif idin leeyahay iisoo sheega iyo hadduu isbedelo insha allah bismillahi hopefully inuu hadda fasax noqdo intii horena ka dheeraado hadduu marka hore daciif idinku ha iga raali ahaada insha allah bismillahi karim videoga kan waxaan kaga hadlaynaa dhaqaaluhu roolka uu ka ciyaaro divorciga familiyada burbura iyo xiriirka uu la leeyahay dadka isqaba ama guryaha marka ugu horeysa markaynu eegno dhaqaaluhu meel weyn ayuu ka ciyaaraa guurka ama familiga qofka singalka isaga because lacagtiisa cid kale lama maamulayso isaga iskale laakiin when it comes to family ay noqoto laba qof oo isqaba ama caruur leh even xataa caruur haddaan laba qof oo isu yimi markay yihiin dhaqaaluhu meel point weyn ayuu ka ciyaaraa hadda for example oo kale istaadiyada lagu sameeyey maraykan north america aniga deganahay marka maraykan oo kale istaadiyada aan akhriyayay amaan ogahay wala sameeyey dhaqaaluhu wuxuu ka ciyaaraa baa lagu leeyahay divorciga markay noqoto furitaanka waa the second leading bay kuleeyihiin ka labaad oo dadku isku furaan sometimes xataa waxay kuleeyihin waa number one usually number one waxay yidhahdaan waxa ah cheatingka ninka oo naagtiisa cheat gareeya oo naag kale u taga iyagu guurma yaqaanaane ama naag ninkeeda cheat gareysa so infidelityga waa number one divorciga markay noqoto dhaqaaluhuna wuxuu yimaadaa financigu number two qaybna waxay kuleeyihin hadda number one buu maraya dadku ay isku kala tagaan ama ku dagaalamaan ama isku canaantaan ama isku ku murmaan marka labada qof ay isqaba haddii aanu dhaqaalaha markay noqoto lacagta aanay on the same page ahayn gurigaasi sida uu dhismaa way yar tahay dhaqaaluhu markaa meel weyn ayuu dadka noloshooda ka ciyaaraa iyo dagaalka iyo muranka iyo qaylada labada qofna haddaanay isku meel ka aaminsanayn ama aanay intay isu yimaadaan go-aan ka wada gaadhin lacagta ama dhaqaalaha soo galaysa waxa weeyaan aada ayay noloshaasi baa yimaada ama dagaal baa yimaada marka maxaa sababaya inay dhaqaaluhu buuxinti noqdo sababtoo wax kasta oo nolosheena kamid a lacag ayay u baahan tahay labada qof oo isu yimi oo isguursanayaana ama isguursadayna runtii intooda badan waxaynu ka kala nimi different family waxaynu soo kala kursaday laba reer oo kala duwan single markaad ahayd oo kale your own lifekaaga adaa yaqaana so qofka kan iyo adigu marnaba isku value ma tihiin valuegiinu waa kala gaar lacagtasaad ka aaminsantihiin waa kala gaar qof waa spender qof waa dhaqaalo badan yahay qof waa waxaynu odhan karnaa qof waa bakhayl qof waa generous way oo dadka lacagta bixiya so labadii qof mostly waa completely different bay kala yihiin laakiin muhiimaddu waxay tahay labada qof haddii aanay marka ugu horeysa ka wada hadlin dhaqaalihii oo aanay wax meel isla dhigin oo odhan warniyaho bal adigu sideeba xaaladaadu waa sidee dhaqaala xagaad ka maraysa ama ay marka isu yimaadaan waxaa imanaya realitygii even da banaanka dadku markay ku kala hadaan haddaanay daacad suhayn waxaa imanaya muran inagoo kale haddaynu dib kusoo noqono soomaalideena inteena badan divorcigeena markaa ugu dhaqaalihii wuxuu noqday ama number two ama number one even haddaynu nahay inaga soomaalidii kama soo qaado kale hadda qurba haddaynu inaga soomaali communitygeena haddaynu nahay ama dadkeena soomaaliyeed ama even muslimku xataa muslimadaha kale intooda badan qaybtood way naga duwantay markay noqoto dhaqaalaha inaga soomaali haddaynu nahay iyo even dad badan oo muslima waxaynu aaminsannahay ninku he's the one oo markay noqoto takeergareeya familiga laakiin qurbo markaynu nimi wixii way kala duwanaadeen soomaaliya markii la joogay ama africa la joogay ninku isagaa soo shaqayn jiray gabadhu waxba kamay ogaan jirin dhaqaalaha odaygu lacagta intuu lacag haysto inta xoolo haysto meelu xoolihiisa geeyo wax kale waxba may ogeen laakiin qurbo markii la yimi dadkii intii badnayd special somali majoritygeeni hadda qurbaha joogay caydh baynu qaadanaa ama family haddaad leedahay badanaa familiyada caruurihii caydh baa la siiyaa caydhii lacagtii badanaa hooyada gacanteeda kusoo dhacdaa
lacagtii haddaynu runta markaynu reality ka hadalno I know this is kind of sensitive inuu yahay laakiin hadda dadkeena soomaalida especially dadka yurubal oo caydha qaata badana familiyada very khaliil familia ayaa isla jooga ama nolol fiican ku nool waa laba qof oo nolosha ku heshiiyey oo yiri laakiin inta badan dadkan waynu isdagaalna waana lagu kala taga waxa la isku dagaalana waa lacagta ama waa caydha reerkii soo gashay oo gabadhii ay jeebka gashanayso odhanaysa lacagta ana caruurta qoon ana u talinaya halkan ay martay ayuutan ku kala hagbad baan ku kala ninkii waa la isku leynay ninkii isagu soo shaqaysanay isaguna xoogaagiisi buu qarsanaya marka runta markaynu ka hadalnay dadkeena qurbaha jooga inteena badan waxaynu kala tagnaa sidoo kale waa lacagtii way bointiga uu taagan yahay waxaadna ogaataa labada qof wax kale waa lagu heshiin karaa laakiin labada qof haddii laba masalo aanay on the same page ahayn sida caruurta loo korsado iyo lacagta haddaana on the same page ahayn gurigaas ma dhismayo waa laga yaaba communicationka inuu xun yahay laakiin sida caruurta u korsataan caruurta diiniyan school maadi haddaan caruurta meel aabahay hooyadu uga soo wada jeedin oo de go-aankaa laysku raacin oo dhan okay this is how we gonna caruurteena inuu rees garoobin familigaasi maagaagay lacagtii haddaan meel laysugu odhan oo la odhan hey okay intaasoo lacag ayna soo gashay maxaynu samey labada qof ee isqabaa haddii aanay the same page ka ahayn markay noqoto dhaqaalaha oo labada qof intay isla fadhiisan oo dhan warheede warxaaji lacagtan ayna soo gashay dowladdu $2,000 bay ina siisay adiguna intanaad soo shaqaysa maxaynu samaynaa oo wixii aan la qorshayn oo la odhan okay intanaynu familiga u dirayna intan biilasheena noqonaysa intan waynu safe garaynaynaa markaa labadii qof the same page yihiin qofna wax ma qarin wixiina daacad baa yimi gurigaas inta badan wuu dhismaa sababtoo labadii qof ayaa meel kasoo wada jeeda laakiin haddii gabadhiina lacagtii marka caydhay soo qaadato ay halkan jeebka gashato oo tira lacagta hay kusoo faragelin caydhayda anaa iskale anaa lay siiyey caruurteeda laygu siiyey reerkaygi baan u diraya ayuutan ku gelaya dee isaguna intiisi u qarsanaya ila qofka bini-aadmiga inkastoo ay noqon karto baynu odhan karno saqajaanimo wey laakiin ogow adiga markaadan adna daacad ahayn qofkii kalena inaad ka filatid inuu daacad ku noqdo maa sababta lacagta adigan maad samaysan lacagta tan xataa caruurta lagu siiya caruurtuna way idinka dhexaysaa in laysku laayo maaha laakiin waa in meel laysugu yimaado marka haddii aynaan lacagtii aynaan isu iman odagaagu markuu soo shaqeeyo oo lacag inkama ay idin soo gasho oo tiradan okay lacagtan $5,000 ba xaaji kusoo shaqeeyay kama soo qaad cayd laguma siiyo $5,000 ba odaga kusiiyo haddii adiga iyo odagu intaas la soo fadhiisataan ayadan oo dhan maxaynu samaynaa okay biilasheeni waa 3,000 2,000 maxaynu ku samaynaa kunkan waynu dhigan kunkan caruurta iskuulkooda 300 aabaynu diray 300 hooyadaabaa loo diray oo aan labadii qof meel isugu iman guurkaasi wuxuu noqonayaa ambalance sababtoo haddii ninkii isagu intuu soo shaqeeyo uu biilashiisi bixiyo oo aanay xataa gabadhii ogeyn waxaa laga yaabaa meesha in xoogaa khilaaf u yimaado haddii gabadhii caydhi ay soo qaadatay oday ku tirado lacagta way dhammaatay meel ay gasheena aanu garanin waxaa laga yaabaa isaga laftigiisu inuu yirahdo xagee lacagtii gaysay waxaa dhici karta markaa meesha inay noqoto xoogaa xaasidnimo ama resentment ay noqoto oo labadii qof ay kala wax qariyaan meeshiina haddii mar ay khayaano soo gasho noloshaas ama familigaas waa dhibaato aadan ogow adiguna aad wax qarisa isaguna inuu wax qarinayo marka dhaqaaluhu meel weyn ayuu nolosha ka ciyaaraa guriga furitaanka divorciga familiyada wada jooga badana qurbahana waynu ognahay dadka familiyada isla degan oo caruuraha wada korsanaya waa laba qof oo meel kasoo wada jeeda hadday noqoto dhaqaale waa laga yaabaa inay meel yar ka daciif yihiin dhinac kale laakiin they have to be on some area on the same page laakiin lacagtu waxay noqotay daliilin ka laysku laayo ama laysku furo waxaad arkaysaa niman qurbo jooga oo bangiyo gaara le aan dumarkooda ogoo lacagta qarinaya waxaa jira niman tagsiilayaal oo markay soo shaqeeyaan ama talagyaal oo yidhaahda lacagtii habeenka dhan maan soo shaqan oo bangiyo dad kale bangiyadooda ugu qorayay waxaa jirta gabdho caydhii iyo lacagtii soo gasha qarsada oo aan ogeyn marka waxa muhiim waxay tahay haddii meeshii khaa-inima soo gasho haddii meeshii aanay trust soo galin labadii qof waa la isdagaalayaa labadii qof waxaa laysku leynayaa lacagta xaggay martay waxbay maadsiin waxay sii xaggaad gashay reerka biilashiisa lama bixin bababa markaa dhaqaaluhu meel weyn ayuu ka ciyaara nolosheena qofku markaad rabtid inaad family dhisatid inaad reerkaaga uu kuu hagaago you need to be honest with yourselfkaaga iyo qofka kula jooga I think if you adiga honesty aad tahay qofkaasina inaan honesty inuu khaa-in noqonay hadduu khaa-in noqdo markaa go-aan baad ka gaadhaysaa laakiin adiga daacad baa tahay laakiin haddii aadan daacad ahayn qofkan kalena ogo isagana waa human bi shaydaan baa jira inaan isaguna meesha u khaldanaan karayo laakiin labada qof markay daacad isu noqdaan
qofka kale xataa qofka kale xoolihiisa kuma ciyaaro qofka kale qofku markuu daacad kuu noqdo ku yirado okay this is what I have maxaynu samaynaa adiga waxaa ku gelaysa naxariis waxaa ku gelaysa dhaqaale waxaa ku gelaya inaad wax kala yaryaraysid laakiin qofkii markuu wax kaa qarsado uu ku yirahdo maanta dhashil maan keenin lacag ima soo hadhin meelay martay ma garanayo intiiba waan diray halkan amne meesha waxaa imanaysa xaasidnimo adiguna waxaa gabaad qarsan adiguna always waxaad isku dayaysaa ninka lacagta ka guro ninkuna xuleeya naagta lacagta ka qarso marka still even familiyadeena soomaalida waxaa ina burburinaya lacagtii qayb weyn bay ka qaadataa not the only reason keliya maaha laakiin big time meel weyn ayay ka qaadataa marka dhaqaaluhu waa wax dadka isku jira because meesha muran baa imanaya dagaal baa imanaya qof waliba wixii buu imanaya mana aha qofku inuu qofka kale dependent ku noqdo oo xiran tahay labada qof dhaqaalaha markay family laba qof isu yimaadaan siday ku heshiiyaan okay aniga akoon gaara miyaan leeyahay adigu akoon gaara miyaan leeyahay hal akoonan biilasha isugu ridnana miyaan leenahay mise everything aynu sameyno meel bay isugu wada timaadaa marka laakiin waxaa muhiima inaynu ogaano haddii one person uu dishonest yahay uu khaa'inimo wada ama aanu daacad ahayn in meesha khasaara imanayo sababta sidee baad ula noolaan karta qof aanad aaminsanayn ama aaminin ama wax kaa qaranaya waxaa jirta qiso gabadhaan friendsnahay beri iiga sheeg inantaas waxay iiga sheekaysa waxay gabadhaan darisnahay iyo ninkeeda isqabay aad laba qof u fiican bay ahayn waxay waa gabadh fiican dad laba qof oo aad isu jecel ilaahay awlaad mu kala sin muddo dheer bay isqabeen laakiin waxay waa dad waliba gabadh diin la ahayd wiilkuna maybe inuu la mid ahaa waxay family fiican oo isqabo oo happy isku abay ahaayeen oo degan oo ma isku faraxsan waxay tiri muddo dheerna way isqabeen waxay tiri maalintii dambe markaa beri muddo ka hor ayaa wiilka accident u galay gaari accident waxay tiri markaa wiilkii dadkana qofkii qurbo jooga garanay qof markuu accident gala haddii dhaawac kusoo gaaro insuranceigii baa badanaa lacag kusoo wada dhakhtar baa tagasaa lagu soo yaro dugdugaya dhakhtarkii baa adigu lacagka wiilku lacag buu sugayay markaa show lacagtii baa loo soo diray may ogeyn gabadho maalintii dambe iyadoo jeegag iyo guryaha kana qol meelkana kala barbaarsan waxay aragtay lacagtii ninka loo soo diray iyo intaasoo kun oo dollar uu meel soomaaliya kamid u diray waa muddo dheer malaha 2 bilood 3 bilood ayaa lacagta ka hor loo soo diray weliga umu sheegan gabadhu waxay qalbigii baa jabay way muraar dilaacday way qaadan weyday way buu iga qariyay waa hadhow gurigii yimi way u sheegtay arrintii waxay ku tiri khaa'inimaad samaysay waana kaan iyo jabaniya adiga inagu kala kaxay fur waxay tiri gabadha si kasta waa la yeelay dhaar waxay ka martay wiilka waxay tiri wiil ninkii xataa wuu qaracmay waxay tiri fur waxay tiri anigu xataa waan la hadlay dadkii oo dhan waan la hadlay waxay tiri sanad abooda maniga bay tiri lacagta maaha laakiin waxay tiri aaminaad la-aanta bay intaasaan isqabnaa habi baan ku ahaa weligay wax sidee buu ii aamini waayey oo lacag yaro xun oo dowlad gaalo soo siisay uu iga qarsaday waaye gabadhii waxay tiri si kasta waa layay wiilkii gabadhii waxay isagoo ooynaya oo barooranaya ayay berigaa kala tageen marka trustigu waa wax muhiima qofka biniaadmiga kula noola markuu wax kaa qariyo حتى وحكا تجي تراستجي مركا إن شاء الله بالملا كرين next time كدبي أي مدمعنا إنه قارنوا وح وجو هاو داد أي وإفكت كرين سقف كبرانون وحكا له شتى قصة ويل صوماليا أو إذا ما دم military كشري لا بس سندود I think اللي يجيربوا مقنع لا بدي سندود ومقنع لحقت هودو حاسكي سألو سودريا كوكودي كسول حاسي تذكر military كشرنا مركي بقيهين أغلى جما جوستو تاكسي وحاسودن markaa wiilkii lacag badanaa loo soo dirayay dee xaaskiisa dabci way iswareysan jireen malaha wuxuu may sheegnin lacagtii meeshay marayso wiilkii markuu kasoo noqday wuxuu yiri mahar broken buu noqday qalbiga ay jabay wuxuu yiri wixii lacag hayd oo naloo soo diray oo dhan beeni buu yiri maantada aan soo noqday 1 centi oo akoonkayga kuma u jiro gabadhii lacagtii waxay afrika u dirto waxay reerahooda u dirto waxay ku ciyaarto adigu wiilkii wuu qalbi jabay wuu muraar dilaacay wuu qaracmay sidaan sheekada ku maqlayna labadii qof way ku kala tageen marka wuxuu yiri heart broken bay igu riday qalbiga ay jabisay marka labada qof bay doesn't matter nin iyo gabadh ku yahay labada qof hadduu qofka kale khaayimeeyo heart broken ba ku dhaca dee qofkii dhammaa aad guursatay oo guriga la joogto nolosha la wadaagtay oo wax kaa qarsanaya waa qalbi jab bini'aadmiguna isku mid maaha oo dad baa markay trustiga ay aaminaadu ka tagto
inay difficult ay ku tahay inay qofka dib u aaminaan marka gabadh wax qaayintano qofka ninkuu qalbi jabaya ama wuxuu dabcaya inuu wixiisi qarsado leeyahay dhaqaalahay ku xuntay waxba ima ogola inaan meel dhigto xoolaha igala dagaalantaa gabadhuna sidoo kale ninkan waxba ima siiyo lacagtiisu iga qarsada meel wax dhigo martaa habeen iyo maalin qurbaha kan iyo meel kastaba special qurbaha rag iyo dumarka waxay isku dagaalayaan lacag waxaad moodaa in la yiri dagaal la dhex dhigay marka ugu dhaqaaluhu runtii meel weyn ayuu ka ciyaaray marka haddaad gabadh yar tahay oo hadda guursan doonta iyo haddii gabadh la qabo aad tahayba waxaad ogaataa haddii adiga iyo ninkaaga ama haddaad wiil tahow waxaad ogaataa adiga iyo xaaskaagu haddaydan on the same page ahayn dhaqaalaha noqoto idinkaydi khusaysaa waxaad ku heshisa laakiin labada qof haddaana isla fadhiisan oo go-aanka gaadhin lacagta soo galaysa reerkaasi ma hagaagayo haddii kale midbaa dareemaya in la khaa'imayo oo kii kaluu resentment iyo xanaaq iyo ceel iyo xaasidnimo uu qaadaya marka insha allah bidmillahi kar ilaahay naga dhigo kuwii daacad ku wada noolaado kuwii honesty isu ah alwaysna qofka qaa'inka ahay ma guulaysto waad aragtaa guryaheena se u burburaan waad aragtaa caruuraheena cidlada ku dhammaadeen waad aragtaa faamiliyadeena burburaan oo intooda badan ilaahay baa calafka haya laakiin waxyaabo yaroo simbala ay ku kala tegayaan dadkii marka insha allah bidmillahi karin ilaahay hayna wada hagaajiyo meel kasta inuu joogno iyo waa muhiim inuu qofka biniaadmiga daacad noqdo inuu runta hadlo inay is ogaadaan sidee baad ula noolaan kartaa qof guri kula degan oo isqabtaan oo aadan ogeyn xoolihiisi meelay marayaan oo adiga ogeyn oo adiga iyo isagu aydan open communication lahayn marka dhaqaaluhu still even faamiliyadeena burbur badan ayuu inoo keenay meel badan ayuu dad badan oo faamiliya badan ayaa ku kala tegay oo lacag isku dagaalaya oo wax ima siiyo xoolihii buu qarsaday shil ima siiyo isagoo odhanaya lacagtii caydha qarsada guryi naaga dhanba raggooda waxay ku eriyaan xoogaaga yaroo caydha oo dowladdu siiso oo ama ayuuto khayraad ku galaa ama meel kale ku galo qofkuna inuu dhaqaalo lahaada waa muhiim laakiin in ay gurigaaga burburiso ma aha sababta qofkii xaasidnima ku gelaysa qofa xaasido ood wax ka qarsanaysid ama aad leedahay la tartamaysid sidee baad ula noolaan kartaa guri labada qof inay daacad su noqdaan oo qalbigooda isu xaadhnaado weeyaan marka insha allah bidmillahi kan ilahi waxaan ka rajeynaya inuu qalbiyadeena isu nadiifiyo inaynu ogaano inaynu nafteenana ku tashano qofka inala noolna aynu ku tashano oo aynu noqono dad daacada oo lacagtan yar oo dowladdu ama ayna siiso ama ayna soo gasho inaanay guryahana ku burburin marka insha allah bidmillahi kale anti next time khayr ayaa idin rajeynaya assalaamu calaykum fadlan haddaad videoga ka heshay like saar share garay subscribe insha allah bidmillahi qaanuun inuu muhiim yahay wixii alla kusoo galana wax ka dhigo si aad noloshaada horumar u gaadhid oo aadan qof bini aadmiya ugu baahan insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu